markaska Imaamu Shaafici ee ku yaala tuulada Baahuuri ee waaxda Dheertu ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusay arday ku tartantay Quraanka Kariimka si loogu dhiirigeliyo oo ay ugu dadaalaan barashada Quraanka waxaana xafladan ka soo qayb galay culimo ka kala socotay Gaarisa Dhadhaab iyo Dheertu iyo waalidiinta waxaana xafladda lagu daafuray ayada Quraana maanta waxaa bilaabanaysa xafladda taxfiidka magaalada Baahuuri waxaan ku bilaabanaynaa insha Allah ta'ala ayada Quraan عبد الحاكم محمد فليتفضل مشكورا سودو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وعبد الله الآخر أو كحيو عبد الله عبد الخير سودو إن شاء الله. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أحمده تعالى وأشكره جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابه هداية للعالمين ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور الناس أجمعين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن متشابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره وتمسكوا بهديه فعزوا وسادوا وملكوا وقادوا ومن تبع هديهم ولزم سنتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سؤال: ما هي شروط القبول العمل؟ جواب: شروط القبول العمل عند الله ثلاثة: الإيمان بالله والتوحيد. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الإخلاص هو العمل لله من غير رياء ولا سمعة. قال تعالى: ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الموافقة لما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود رواه مسلم. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد النظم للمريد في النون والتمويل والمندود سميته بتحفة الأطفال عن جمع المهيد الكمال أرجو به أن ينفع الله والأجر والقبول والثواب أحكام مستحيل التمويل بالنون إن تصوم وللتمويل أربع أحكام فوق التبيين فالأول الإظهار قبل الأحرف للحق ست رتب فالتعريف ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. xalfadda waxay ku saabsan tahay tartan maartay musaabaqo ilmaha maartay aan tartansiinaynay taariikhda taxfiidkan aan furnay ee xalfadda hore aan qabaneen ku furnay waxaan maray waxay ahayd 2022 bishii 11aad sanadkii hijriyadan waxay ahayd waxaan maraynay 1440 iyo maartay saddexda aakhirkeedii sanadka aakhirkiisii ayay ahayd marka xalfadda waxa weeyaan tan waxay ku saabsan tahay musaabaqadii maartay ilmaha tartansiinkoodii waxaan insha Allah u rajaynaynaa oo maartay noogu xogi doonta maartay shahaadadiina maartay ilmaha maartay bixintoodii sanadkan soo socdo marka insha Allah ta'ala way maasiin culimada iyo duqeyda iyo waalidiinta iyo wasaasiga ka soo qayb qaateen xalfadda waa maartay soo dhawaada alxamdulillaah rabbil aalamiin waa meeshan ugu kulmiyay maxaan iskugu maanay xalfad diineed oo maanta meeshan maartay ma lagu tartansiinayay meel fiican bay noo joogtaa meeshan meel ka fiican waxaan ilaahay ka rajaynaynaa waqtigiisa kale inaan maartay aan iskugu imaadno oo ilmaha shahaado fiican ay helaan waxaan maray meeshan hadda maanta dadka iskugu imaaday waa dadka maartay ehl wadada oo maartay khayr ka soo qayb galay meel iskugu imaadana meeshan baa ugu khayr badan marka waalidiinta ilmahan dhaleen iyo macallimiinta ku soo daaleen iyo dadka maanta meesha iskugu imaaday waa wada mahadsantihiin ilaahay baa mahadda iskale meel ka fiican oo iskugu imaan lahayn malaha ku soo dhawaada inta way hadalkay waxaan sii kala wadahay malaha waa salaamatuna assalaamu calaykum meeshan oo kale saad ogtihiin tuulooyinka way bateen adduunkan eega la joogo wadan waxa iska wax u qabse yaa la gaaray ilmahan haddan hor fadhiyaan hal laga yaabaa inay qur'aan baran hayeen 5 sano ama ka badan xogaa culeyskan haysta wuxuu yahay tartan baa jira baryahan lagu tartamahay tuulooyinka annaga iyo nimankii kale niman adeertana waxaa jiraan tuulooyinka aad ugu tartamaan yaa jiraan cunuga 2 bilood baa la diri tababar loo diri ama xaga dheer loo diro ama inta sheekh buu noqon magaalo loo diri annagana 10 sano laga yaabaa cunug inuu fadhiyo taxfiiska u barto 12 sano madrasa u dirno inta waa la sii qabsaday oo dhulkii wax ku banaan ma laho marka baraarujin waxaan soo joodin lahaa ilmaha horta markay taxfiiska ku jiraan waxaan codsan lahaa in laga dhiso ibtidaa'iga iyo sida hadda ilmaha wax u akhrinayeen oo kale in marka hore laga dhiso ilmaha markuu takharujana uu cadaadi ama ibtidaa'iga halka uu ka sii bilaabo oo asagoo cilmihii wax fahansan haddii meel loo dhiibayo oo taxfiiska quraanka uu yaqaanaay ilmo wax fahansan marka ayada uu soo baxo uusan ahayn mujarrad qof quraanka kaliya yaqaan uusan ahayn ee quraanka iyo macnihiisa qof xambaarsan inuu noqdo waxaan kaloo soo joodin lahaa inuu codka nagan meel dheer gaaro magaaladan saad ogtiin muddo ay dhisan tahay waana madrasa la'aan culayskaana meel walba ka yaala nin walbana eega madrasooyinka waxay noqotay iska wax u qabsaday maxay ilmahan meel la geeyay rabaan hadda markuu ilmaha la sii qaado oo gaarsi la geeyo iyo markuu inta joogo way kala aad bay u kala duwan tahay maxay inta markuu joogo ilmaha dhan way ku dhigan karaan laakiin xagga marka uu sii qaado hal cunug ka badan baad la kaca ku fi marka waxaan soo joodin lahaa intaan isku tashano 2 galaas 3 galaas waxay doonto baa noqotay tijaabadeeda anagu waan soo qaadnay waanan aragnay inaan qaadno oo ilmahan meesha ku xaroon lahaayeen aan u sameeyno hadda sanadkan ba aysan dhaafin oo meel baan loo dirin ilmahan yar ee quraankan baran hayaan dadka bari iimaan hayo dadka raba inay wax baraan ay soo saaraan sidii idinka liin soo saaray idinka waa
quraanka intaad barataan yaan heesa lagu dhageysan quraanka intaad barataan dhaantaa ku fiirsanina quraanka intaad barataan wax kale ha ku qasina qofka xaamilul quraanka wuu ka qiimo badan yahay qofka kale qofka xaamilul quraanka qofka kale ilaahay agtiisana uu ka qiimo badan yahay bulshada agteedana uu ka qiimo badan yahay marka adiga qiimaha ilaahay ku siiyay hadda adiga qiimo disho waa mushkilad waay marka ilmaha waxaan ku darmayaa waajibkii ama lidansiiyay lidin guday inaad seetahay iyaga u gudataan munaasabadan maanta aad baan ugu faraxsanahay waa munaasabad mar walba laga qabto magaalada Baahuuri sidaad ogtihiin ballakuushmaha ka tirsan gobolka Dheertu tartamo ballaaran baa ka jira baryahan kolba xalfadu waxay u wareegtaa waxay u wareegtaa lakooshinka u wareegtaa lakooshinkan waa lakooshinka ugu caruur badan maxay ahayd caruurtiisana ay aad imtixaanka ugu baastay aad baan ugu faraxsanahay maanta way maadsan yihiin meesha waxaa wiilasha wax ku baraan nimanka macallimiinta wax ku baraan waa niman ka soo akhristeen Dheertu oo haddana ka akhriya Baahuuri oo niman aad wax u barteen insha Allah ilaahay ha barakeeyo waan u ducaynaynaa caruurta maanta meeshan imtixaanka lagu geeyayna waa caruur aad noo farax geliyeen oo meel mufassallada ay kala qaateen aad noo farax geliyeen aad u maaseen kana waan u ducaynaynaa ikhwaani arrintan waa maartay waa wax ilaahay loogu farxo waana ilaalo waana meeshii ugu fadli badnay oo guriga ilaahay masaajidka ilaahay dhexdiisa ahayd oo kitaabka ilaahay maaragtay ugu daranaya lagu xafidayay waxaan u ducaynaynaa ilaahay horta macallimiintii ardada oo soo bareen iyo waalidiintooda ilaahay inuu barakeeyo oo ilaahay maaragtay ajirkooda maaragtay ugu laalaabo ikhwaani saan ognahay adduunyada way iska gaaban tahay iyadoo dhan baa maaragtay la baabi'in doonaa oo la laabi doonaa intaa ka sokana qof walba maa yawmun min alayaam baa nafta laga qaadi oo uba ka dhex bixi ikhwaani adduunyada waxa kaa raaci waa wixii maaragtay kalaamka alle iyo wixii aad kasbato oo khayraada ilmahan haddii hadda waalidiinta dhashay hadda khayr allaas iyo macallimiintu waxay bareen tawxiidkii iyo maxaan ku dhahaayey qur'aankii iyo axkaamtiisii bay bareen ilmahaas haddaan qur-aanka macnihiisa la barin oo madaaristii iyo maarkii aan la geynin meelaha kitaabka ilaahay lagu barto hadhowto kuwaa dubaga ku jira ee jeedada xiirtay unbay ku darmanhayaan qur-aankii wuxuu noqonayaa marka hal dacaa lagu dhisay waalidiinta way maqlahayaan baan u malayn war adduunka waa laga tegi waad aragtaa habeenkii habeen leyli mar kasta waxaad arkaysaa wixii laleeyahay hebel caawa si uu seexday ma soo toosina waa mey war adduunyada waxa kaa raaci wuu iska yaryahay marba waad ka tegi nin walba uu ka tegahayaa waxa ku anficahaya waa camalka wanaagsan ee saalixa iyo wixii maartay ilmahaaga aad barto yaa ku anficahaya meeshii maartay adduunyada ugu sharafadnayd baan maanta joognaa meesha maartay kitaabka ilaahay lagu tacdiiminayo lagu weyneynahayey qur-aanka lagu xifdiyey maaragtay wixii kale axkaamtiisa lagu xifdiyey masaajidkii yaan joognaa meeshan waxaa la yidhaahdaa malaa'igta ilaahay way fara badan tahay malaa'ig waxaa jirtaa maaragtay majliska khayraadku raadinayso markay helaan way isku yeelanhayaan baan helina warkaale kaale meelkaani waan helnay waa majlis dhulka fadhiyo isugu khasaarin markii ilaahay subxaanahu wa tacaala mahaddaa ilaahay baa iskale waxaan u mahad celinaynaa qaryada maaragtay Baahuuri dadka waalidiinta ilmihii maaragtay noo tacliimeen iyo macallimiintii maaragtay ilmaha noo soo barbaariyeen yaan u mahad celinaynaa khayrkiina allaha badiyo waxaan kaloo u mahad celinaynaa intii maaragtay tallaabo soo qaaday ama maaragtay meel dheer oga maaragtay bulbaarbiyo maaragtay magaalada maaragtay la yidhaahdo leerku ka imaatay oo culimada qayrkeed leh ayna waa u mahad celinaynaa saadadkeedna xadiiskana waxaa ka sugnaaday
كتاب القرآن دب الله يكفر يا رب دب الله حسبه وديا يرفع الله بهذا الكتاب قوما والله به الآخرين لكن إسكايا يعني وأنتم كجيرا وما على قرآن القرآن إلهي حسبه وديا لكن قرية وكتاب الله عبد المقطي وإجمعي سنبرا وعصاه كبقنا إلهي قرب ما تكيين إلهي سبحانه وتعالى هو ما القرآن فقر ما إلهي كفر يا الله المقدر بارك الله فيه جزاكم الله خير كتاب إلهي أعطاني يرمى معورنا حسن عسيات يرمى كتاب إلهي أعطاني معورنا إلهي عسيات يرمى مدرسان سنة مارتي المهل ونفر العام عالمات عكاش قيمه بارك الله فيه جزاكم الله خير ولا يلا هذه مارتي دكسي أما تحفيدك أما مدرسة هذه آن قيمينا ما دام أنا قارس في إيماني إما القرآن في آخرين ما شاء الله نيكي قارئها عبد الحافظ الله بركيه رمتي مارتي في سورة يونس يونس مارتي بيتك كواد بيتك قدام بيا يكن مارتي حافظ يكن قور ليه أيو أخري وحان نسلها من القرآن في آخرين هاي ورياسي ويكدين هذا دايا أول إلى سورة يونس وقت يهوتا كتر دايا معنا إنسان أخرى عيساني من القرآن الله بركيه معنا ولا ليه عروت وحاويان وعلى كشوة مرفشة ونيسان waxaa ku xigay isagana oo saas oo kale macnaha qabiibka Abdullah Abdi Abdul Khair oo aan jeclahay asagana maar khudbada ma sha Allah si fiican buu noogu akhriyay waan dhageysanayay waxaa kale ku xigay ilmihi ma arfay su'aalo iyo jawaab tawxiid isweydiinayeen Abdul Sa'i Abdul Hafiz marlabaad soo laabtay waxaa kale ka dambeeyeen majmuuca tuhfat al-atfal oo maar gabdho wiil ka koobnaayeen ayagana si fiican bay maar runtii u akhriyeen inta ka badan ilmaha ay akhrin karaan xaflada la soo gaabiyo أما الله تعالى قال ولا ليال ما أنت وحدك ولا ليال ilmihii lagu daalay oo iskuulada maxaan ku iraada foom foo gudeen haddana maartay aadeen maar jaamacad ilaa biyaha qaateen macnaha kuntii waa ka waalidiinta gabanaha iyo imbiga iyo dadka maxday maar aabo iyo maar xiriir maar shaqa iraadi shaqana ilaahi laakiin inta maanta quraanka xifdiyay qof u baahan mara waa taajir awad ya ninka mar haddii quraan xifdiyo wax uu u baahan yahay macallimiinta gaaris konton kuwa Nairobi 100,000 waxa weeyaan bayna kale iskuul bay cunuga shaqalaan cid isku jeeda marka ilmaha heer ay gaaraan gaaris in iska taariiraan ya ilmaha waxaan garaa xaafada aan joogo tadriic iyo taariireen hadda qaatay Allah asto maxaan ku yiraahdaa mar taariikh oo cunuga abiisa miskiin garan leeyahay 2 milyan 3 milyan ma gafaasta cunuga dib u islaha loo shaqo waa caraya ilaa halkaas ka dhacaya marka walaal ilmaha la quraanka dib la baro maya aad la soo baray macallimiin qayb badan wax soo bareen hadii marka asaa meel furan baa asaa ma dugsiga meesha ayaa macallinka noqonaya marka ilmaha diinta la baro walaal hadaarka una dheefto aad gaarto ya dheefto wada gaarto adoorayso iskuul ma igan saaro iskuul ma ka la xirmay macallimiinta iskuulka iyo haraaqe yani waxaan ka hadlayaa macnaha qiimaha diinta ay leedahay ayaan ka hadlayaa marka walaal waan deeyaan malayni baahuri marka waxaan leenahay maartay dugsigan iyo madrasadan Allah ujiyo waxaan kale runtii ma celinayaa macallimiinta tuulada ku sabreen oo meesha joogaan oo imaha soo saareen oo maal aqoonta ka saxayaan kuwadka aniga qalay maanaya qofka waalidka muslimka ibnihiisa inuu diin baro oo uu ka badbaadiyaan waa mas'uuliyad maartay qofka waalidka saaran inuu gartana waa shay aad u muhiim ah waalidka inuu mas'uuliyadda saaran tahay oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku haniyo ibnihiisa inuu diin islaam baro معايا كتاب الله ولا شيء كسر البلد أو قوم بالآدم وبرنا يا بيلا كثير الفجر خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولا يلزم هاي ليس هتقول القرآن كبرتان ما نفسي برا وهنيها معلقة ما القرآن كبرا يا بيلا أكثر بلد كم برنا يا واسع عيره ما في حياله جنة لو قال من الله يقول تستر يمكن أنا يريد أن أقرأ القرآن كبرتان ولا سبحانه وتعالى قوله هو المرجع مرجع جزاك الله خيرا والدين بس إنه هذا الكلام ليس واحد بران برا شو كان الدين برا ولا سنين مرجع هذا من ليش بكسر وعودي من الله كان بعرف النبي صلى الله عليه وسلم بس منك الله مع محمد الله مع الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله منك ولا كان إحسان كالمسلم لا يقلون زي هذا أنا معلمين ده ناصي وأنا الأمة هنغنا وواجب ديني أنا وأنا أمة هنغنا مرة والبداية أمبرنا حتى أنا إنه أخذ الله قرطان لغيها وإلهي فرصة ما يرى هذا أنا إنه كلابة كلا قضاء لغيها لكن هذه
ducada ka akran walaalka ducada ka mid walaalka san muslim in kasta laga u dhigay laakiin haddana waa qof shakhsiya hayad ma boqolaal shakhsiya lacag la jirta oo ilmaadatiina waxana ay mid wada mas'uulna in qof walaalka xisab ku sameeyo maartay hada ilaa ma naqo inuu duceeyo ilaahay bariyo subhanahu wa ta'ala inuu maartay wiisi asagu inuu ilaahay barakay mid kale ilmaha macallimiinta waxaan ka codsanayaa jazakumullahu khayran macallimiinta waxaan ka codsan ilmaha tawxiidka iyo xadiiska iyo si fiican looga dhiso waxyaalahan yararka maalmaha weliba waa maaragtay arbacada kaleeto hataa khamiiska waqtiga awalkati si fiican ilmaha maaragtay ilmaha noqdaan maaragtay dhisan oo dugsiga markay dhameeyaan mustaqbal fiican leh waalidiinta waxaan ka codsanaynaa ilmaha markay qur-aanka dhameeyaan in tacliin kale lala raasado laakiin aan xoolo raac laga dhigin inuu xoolo raac laga dhigin maxaa yeelay nin kitaab ilaahay xifdiyey haddii aad haddana geel aad raacsato ama lo aad raacsato ninkaas saasa ku dhigay wixii aad barta shalayna kaga u noqonayo arrintaan arrin khatarteeda la wada marka meel walba la jooga inta la tiyaadimaa geelkii gaarska keeni dad dhabay ninkeeda lagu waynayo oo maaragtay ay ku agmaalaadaan kasii bartaan ilmaha markay qur-aanka xifdiyaan magaalada weyn gaaris hala keeno madaan hala geeyo meelka la geeyo gaaris baa ka dhigtaa waxay ilmaha la joogaan u helayaan qaraabada laakiin ilmaha yaa dib loo celin oo xoola raacaya laga dhigo jazakumullahu khayran waxaad soo daabateen waxyaabihii ardada ay soo bandhigeen iyo hadaladii ay jeediyeen waalidiinta waxgaradka iyo culummada ardadii ka qayb qaadatay tartanka qur-aanka ayaa dhammaantood waxaa la guddoonsiiyey hadiyado iyadoo xafladda lagu soo xiray aayado qur-aan ah لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم